madax bannaanida iyo gobonnimada Soomaalida ka maqanay inta badi goobka loogu jiray siday u egtahay. gobonnimadu waa waxa kaliya horta dowlad lagu yahay ba dowlad kasta waxay dowlad tahay markay leedahay sovereignty ama siyaada ama madax bannaanida ugu weyn ee wadan walbana laga qiyaaso waa laba shay waa marka koowaad in awoodda dalka oo dhan uu gacanta ku hayo dalkaas wax kasta oo la xiriira rabshad ama qof in la soo xiro ama qof in xorriyadda laga qaado ama qof in xukun adag oo dil gaari kara lagu fuliyo inay dowladda gacanta ugu jirto dowladdaas la oran karaa dowladda waa madax bannaan tahay arrinta labaad ee madax bannaanida laga qiyaasana waa wixii ku baxaya dhaqaale ah oo dowladnimadaas ku baxayana inay ayadu madax bannaanta gacanta ku haysato laakiin haddii awooddii ciidan iyo nabadgelyo iyo kontroolkii dalkana aadan u madax bannaanayn oo dad kale ay kula hayaan sida dalkeena maanta ka jirta awooddii ku baxaysa dhaqaalena aad u madax bannaanayn madax bannaanidaas waxaa la yidhaahdaa negotiated sovereignty madax bannaani laga wada hadli karo siyaado laga wada hadli karo waana saan annaga ku jirno maanta sababtoo ah nabadii dalka oo dhan gacanta kuma hayno dad baan marti uga nahay nabadii dhaqaalahoo dhanna gacanta kuma hayno oo wixii ciidamadeena u wada baahan yihiin ama civil servicekeena u baahan yihiin ama macallimiinteena u baahan yihiin ama mashaariican annaga leena u baahannahay wax gacanteena ku wada jira maaha waxaan dad u daba taagannahay marka intaan taa ku jirno madax bannaani rasmi ah ma haysano waana arrinta keentay in golaha ammaanka ay noqoto maaragtay qadiyad dhex taalla Soomaalida oo looga hadlayo oo la dareensan yahay in madax bannaanideeda kaliya ma ahan adduunka nabadiisana ay saameyn ku yeelan karto oo arrimaha laga wada hadlo oo go'aanka laga gaaro oo adduunyadu ay faragelin karto bay ka mid tahay marka taas waa xaalad aan ku jirno laakiin ilaahay naguma khasbin waa ka bixi karnaa horena waa uga baxnay oo madax bannaani aan lahayn ugu yaraan xagga ciidanka iyo dalka dhan inaan gacanta ku hayno oo annaga aan go'aanka qaadan karno waa soo maray haddana waa gaari karnaa oo waxyaalahan anigana aan u halgamayo inaynu gaarno madax bannaani ciidan waqti baan u baahannahay iyo si dhaba inaan uga shaqeyno madax bannaani dhaqaalena waa gaari karnaa waqti iyo si dhaba inaan uga shaqeyno waan u baahannahay qoyskaaga iyo qaraabadaada ugu dir lacagaha si degdeg ah sahlan oo sugan goor kasta goob kasta iyo gees kasta oo caalamka ka faa'iideyso adeegga fudud kuna dirso lacagaha abka casriga ah ee Juba Express